السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحاب تلقى نقدر دعونا سمير وبوجوكتان يسول بمقال كيجو ومركا يدي سو قريبا مقال كان وحن دونا يا إن كاجا هالله حقو أن سو أروري ساعدي لصوت عفي أو مركا سيل حريرة مدحونا السومالي لان عبد الرحمن عرو يولي بدقاق قيسة كوسابسن شركة كسعودة مقالة ديفوس إدلك سويسرلاند حيالها أن دونا يو إن المقال كان أنا أوجه الله أيا وحكم ده madaba in cabdiraxmaan ciro uu ka qayb galay shirkaasi meesha uu ka soo muuqday oo uu sawirkan ku galay maxay tahay waa maxay waxyaalaha qarsoon iyo waliba xogo idinka yaabin doona ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa xog aruurinta aynu halkan ku hayno ma aha hadal ma aha fadhi ku dir ma aha ila meerayso waa warbixin ku salaysan wax la taaban karo isla markaasna meel walba oo aynu ka soo keenay xogaha aan idinla wadaagayo waa kuwa aad idinkuna marka aad soo fiirin kartaan marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan iyo solba muuqaalkaygu uu marka idin soo gaariyaba waa 23 January 2026 waan markii ugu horeysay oo aynu maanta hawada ku kulmayno ogeysiis muhiima uu kaaga yimi shirkadda almustaqbal ee xajka iyo cumrada waxay bilowday diiwaangelinta walaalaha doonaya in looga cumreeyo waalidiintoodii dhintay amaba aan awoodi karin gudashada cumrada bisha Ramadaan oo muddo kooban ay naga xigto taasi oo qofka sii diiwaangeliya hadda uu helayo qiimo dhimis 10% waxa kale oo socda diiwaangelinta dadka cumrada tagaya wixii faahfaahinay intaasi dheer kala xidhiid nambarada shashada kaaga muuqda haddii aan bilaabo sidii aan muuqaalkaygii hore aan ku sheegay sawirkan ina hor yaalla ee cabdiraxmaan ciro uu ku galay helikabtarta horteeda maahan sawir hadda ah waa sawir xilli hore ah waa sawir ugu yaraan January 9keedii wixii ka shisheeyay ahaa laakiin goorta uu yahay ma aqaano sidaan xalay idin sheegay ayaan mar kale doonayaa inaan ku celiyo haddii sawirkan uu ahaan lahaa sawir intuu helikabtarta ka soo degay ka bacdina uu shirka u yimaaday sawiradiisa dambe oo maqaayada ku galay iyo sawirkan uu helikabtarka ku galay dharkiisa xataa way isku ekaan lahaayeen isku waqti bay ahaan lahaayeen xataa meel unba iska maaji gareen lahaayeen laakiin koofida iyo shaatiga iyo jaakada iyo tayga iyo waxaan uu qabo markaad fiiriso arkaysaa inaysan ahayn wax shaqo isku leh marka analysiskii hore iyo dabagalkii aynu ku sameynay dhaqdhaqaaqiisay cabdiraxmaan ciro sidaas ayuu weli wuxuu u yahay mid solid ah laakiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan si gooniya ugu fiiriyo laba arrimood oo kala duwan marka ugu horeysa waxaynu fiirin doonaa meeshan maqaayada ah ee sawirada lagu galay maxay tahay iyo maxaynu ka fahminaa marka hore waan fiirin doonaa waxaan si xogta ugu tirada badan aan idin hayo ee idinka yaabin doonta ay ku dhex jirtaa madashan kale ee uu ka soo muuqday oo calanka Soomaaliland uu yaallo oo markaasi dadku ay wareysanayaan isla markaasna fasiraada beenta ah markaasi laga bixinayo qaybtan haddii aynu ku bilowno meeshan waa meel maqaayad ah sida ka muuqata waa meel dadka fadhiya ay dhammaantoodba busy ku yihiin inay wax cunayaan muuqaalada iyo sawirada ay baahiyeen maamulka Somaliland ayaa waxaynu ka dhex arkaynaa in meeshu ay tahay meel cid walba ay saxan hortaallo oo lagu casheynayo ayaguna ay sheegeen inay ahayd meel markaasi casho ah hadal yar oo kooban oo la dul saaray af Soomaali ama turjuban oo cabdiraxmaan ciro uu meesha cashada uu ka jeediyay ayaa wuxuu sheegay in Somaliland ay tahay dalkii ugu dambeeyay ee dal ahaan loo aqoonsado dunida aynu maanta aynu joogno xuna arintaasi uu kaga mahad celiyay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu wuxuu intaa ku daray cabdiraxmaan ciro in Somaliland ay tahay dal xorriyadda qaatay 1960kii oo Soomaaliya xataa ay ka hor qaateen xorriyadda marka macluumaadka laga heli karayo meeshan lagu casheynayo markaynu ka hadlayno macluumaadka publica ah waa wax kooban weeye intii cabdiraxmaan ciro uu hadlayeen waxaynu arkaynay inay ag taagnaayeen waardiyaal iyo dharcad markaasi waardiyeynaya dadka uu markaasi uu la hadlayay hadafka hadalkaayo dhan uu ciro uu ka lahaana waxay ahayd in dadkii meesha joogay uu u sheego Somaliland maxay tahay marka waa sharaxaad Somaliland sharaxay 60kii baynu xorriyad qaadanay dal cusub bay nahay Israel baa aqoonsaday aragti noocaaya dadkaana la barayay ciro uma muuqanin in meesha ku fadhiya maqaam madaxweyne oo dadkaan oo dhan ay aqoonsan yihiin loo arkayay nin dawlad ka socda laakiin wuxuu ahaa nin dadka reebay inuu sheego inuu yahay dawlad la doonay in la aqoonsado nin oo doon ah ayuu cabdiraxmaan ciro ka ahaa hadalkii meesha uu ka jeediyay markii si waaqici ah markaasi loo aqriyo laakiin wax kale information ah oo sawiradaasi dhaafsan oo meesha ilaa hadda laga haya ma jiraan qaybta labaad markii aynu fiirino meelihii uu ka soo muuqday cabdiraxmaan ciro ayaa waxay ahayd meeshan waxaana ka dambeeya qoraal aad arkaysaan ay ku qoran tahay Davos 2026
marka meeshaan maxay tahay ayaynu bal dul istaagaynaa waana halka ay xogaha ugu tirada badan ay ku jiraan sawir weynna idinka siinaya dhaqdhaqaaqa Ciro iyo waxa uu ka qabanayo shirka looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ka socda dalkaasi Switzerland si marka aynu bal u fahanno waxaan rabo inaan idin sharaxo ayaan marka hore waxaan bal idin siinayaa tusaale weligaa ma tagtay shir ay isugu iimaanayaan dad kala duwan ganacsato siyaasiyiin dad la yaqaano oo mataqaanaa arrimo kala duwan markaasi looga hadlayo haddii aad shirarka noocaaya aad tagteen ama Soomaali ha lahaato ama ajaanib ha lahaato waxyaalaha ay very commonka ku yihiin waxyaalaha ay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah bannaanka shirkaas waxaa lagu iibiyaa products kala duwan dad baa buugaag keenaya dad baa barafuuna keenaya dad baa baabuur iyo alaab keenaya dad baa waxyaalo badan keenaya cid walba meeshaasi waxay u imaanaysaa in dadka kala duwan ay alaabtooda ay ka iibiyaan maadaama ay yihiin dad kala duwan marka qaarkood xataa xayisiimo ayaa lagu sameeyaa oo dadka meesha yimaaday haddii ay yihiin dad la garanayo wejiyadooda xataa xayisin bay sameeyaan sidaa daraaddeed shirkan ka socda magaaladaas Davos la yiraahdo waxay isugu imaanayaan dawlado kala duwan marka dawladuhu nacnac iyo bariis iyo canjeero ma iibinayaan iyo products laakiin siyaasad bay iibinayaan sidaa daraaddeed organizationka shirkan qabta sanad walba wuxuu sameeyaa dawladaha la casuumay ee imaanaya ayaa waxaa la siiyaa wax la yiraahdo houses baa la siiyaa qol iyo meel yar oo ay siyaasadooda ku iibin karaan ayaa la siiyaa marka dad bay ijaartaan broadcasting sameeya waxay u yeertaan dad kale oo speakers ah ganacsatadaas kala duwan ee shirkan dhaqaalaha imaanaya ay dalkooda u sharaxaan si marka dalkooda maalgashi uu u helo markaysaan waxay iibiyaan siyaasadooda waxay iibiyaan dalkooda waxay rabaan marka ganacsatadaas waaweyn sida Elon Musk oo kale ee meesha yimaaday ayaa waxa laga iibinayaa siyaasadda dalkaas si nimankaas tujaarta ah ay ugu dhiiradaan in dalkooda ay markaasi maalgashadaan aragti noocaay ah oo weyn ayaa ka jirta sidaa daraaddeed dawladaha meesha isugu imaanaya ayaa intooda badan waxay samaystaan wax house la yiraahdo ayay samaystaan kani markii aad fiiriso waa USA house kani waa Ukraine house ayaga xataa waxay doonayaan in dalkooda colaadda ay ka jirto cid maalgashata oo ay siyaasadooda ay ka iibiyaan inay markaasi ay helaan kani waa Saudi house oo waa dalka Sacuudiga kani waa Qatar waa Imaaraadka xataa Nigeria ayaa meesha waxay ku leedahay house waxayna rabtaa inay ganacsatadaas ka dhaadhiciso in dalkooda la yimaado la maalgashado oo dal fiican u yahay marka housesku waa arrin ka madax bannaan waxa loo yaqaano shirka inta aan shirka la soo gelin bannaanka ayayna ku yaalaan cid walbana way tagi kartaa marka housesku waa kuwa furan oo open ah wariyaasha taga dad kale oo caadiya taga saxaafadda joogta dad kale oo madax bannaan baa iska jooga ganacsato aan shir ku casuunayn baa iska jooga ganacsato yar ah dad kale oo macluumaad goobaya ayaa iska jooga boqolaal dad ayaa imaada sidaa daraaddeed Israel waxay ka mid ahayd dawladihii meeshaas houseka ku lahaa laakiin housekoodu wuxuu ahaa mid very interesting ah magaca ay wateen Israel wuxuu ahaa Abraham house ayay wateen magacan Abraham daa aragto weliga ogow oo magaca Israel ay si weyn magaceeda ay u dul saarto waana magac loogu talagalay dadka muslimka ah ay ku laqi karayaan waxa Israa'iisha la yiraahdo marka Cabdiraxmaan Ciro iyo dhowr qof oo la socotay uu ka mid ahaa ninka ugu magacaaban wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo dad kale oo aan badnayn ilaa 2 qof oo kale ah ayaa waxay ka mid ahaayeen dadkii house-kii Israel fadhiyay ee laga iibinayay aragtida iyo siyaasadda iyo waxa Israel ay overgaranayso oo ay u sheegaysay qaar ka mid ah ganacsatadii joogtay house-kaas oo rabtay in looga jawaabo arrimaha ku saabsan Israel waxa house-kaas Israel u qaabilsanaa ilaa 8 speaker oo kala duwan oo markaas ka jeedinayay arrimo kala duwan ninkaana ka mid ah madax xiran ninkan kale ee odayga ah ayaa asaguna ka mid ahaa ninkan kale ayaa ka mid ahaa waxa kale meeshaasi ka hadlay nin Imaaraati ah oo asagu sharaxayay lecture gooni ahaa maalinka ay taariikhdu ahayd 20 January ninkaasi Imaaraatiga ah ee magaciisa la yiraahdo Dr. Maxamed Cabdullaahi Al-Cali la yiraahdo ayaa wuxuu ka waramayay Abraham Accord waxa la yiraahdo waa agreementigaas cidii gasha iyo waliba outcome-ka uga soo baxaya lecture ah ayuu meesha ka jeedinay waana mid ka mid ah lecture-radii ay dhageysanayeen Cabdiraxmaan Ciro iyo ragii la socday
marka xataa hawskan yarka ah ee arrimaha Israa'iil lagu iibinayay oo badeec ahaanta looga iibinayay dadkii ka soo qayb galay ama ganacsatada ahaa xataa Cabdiraxmaan Cirro guest ka muusan ahayn ama guest speaker muusan ahayn xataa nin ka cazuna oo inuu ka hadlo ay markaasi schedule-ka ay ku jirtay ama loo sii qorsheeyay Cabdiraxmaan Cirro ma uusan ahayn nin asagoo socda iska soo fariistay iska dhageystay iska fadhiyay ayuu ahaa marka maalintii shalay ahayd qofkii ugu dambeeyay oo meeshaasi ka hadlay markii uu dhamaystay hadalkiisii ayaa inta miiskii alaabtii laga qaaday oo calaamad Somaliland la saaray waliba calaamada markii aad soo dhaweyso oo aad si degan u fiiriso waxaad arkaysaa inay yihiin calaamo aad moodidba in jeebka laga soo bixiyay oo aad loo duuduubay oo markii dambe la kala bixiyay jajabka ka muuqda markii aad fiiriso salahan oo kale markii aad fiiriso waxaad arkaysaa inuu dhowr meelood oo kala duwan uu ka jaban yahay oo uu calan xataa inta la duuduubay aad moodid in ama jeebka la soo geliyay ama meelaha kore oo jaakadka markaas la geliyay waad arkaysaa wax jajaban buu ahaaye wax fidsanaa oo meesha yaallay xataa muusan ahayn marka miiskan oo qof lagu waraystay oo ay biyo iyo wax saarnaayeen ayaa inta laga qaaday ayaa waxaa la saaray 2 flower iyo 2 calan oo Somaliland Cabdiraxmaan Cirro fariistay maybe inuu 2 kalmood uu halka uu ka yiri oo dadkii joogay ee tobaneeyada qof ahaa inuu asna inuu ku yiri Somaliland waa dal 60kii baa la aqoonsaday waa dalkii ugu dambeeyay caalamka intii uu maqaayada ka yiri oo kale maybe inuu sheegay ama hadduusan sheegin xataa laga yaabo inuu sawir ku galay marka meeshaan wixii ka muuqday oo dhan markii aad fiiriso intaas un bay ahaayeen qoladan Abraham House la yiraahdo waxay leeyihiin bara bulsho oo kala duwan gaar ka mid ah barahooda bulshada waliba Instagram-kooda markii aad gasho ayaad arkaysaa sawirradii ay soo geliyeen qaar ka mid ah ay waxay ku soo dhex direen Cabdiraxmaan Cirro xataa looma samaynin in post gooni ah xataa Cabdiraxmaan Cirro laga soo qoro qaybta caption-ka markaad fiiriso waa qayb markaasi loogu mahadcelinayo dadkii yimaaday inay soo qayb galeen session-kii maalinkaas jiray iyo arrimahaas marka dadkii la sawiray unbuu ka mid ahaa oo waliba sawirka ugu dambeeyay ayuu ahaa laakiin qaybta historiga ayaa waxaynu ku arkaynaa in hal sawir oo uu qof soo geliyay ayaa waxaynu ka arkaynaa in sawir uu nin soo geliyay asaga Cabdiraxmaan Cirro uu ku soo qoray madaxweynaha Somaliland qaybtaas kaliya ayaan ka arkay wax magac madaxweyne iyo Somaliland ku saabsan oo meeshaas oo dhan markaasi ka soo muuqday saacadii hadda la soo dhaafay marka so far Cabdiraxmaan Cirro inta aynu ka ognahay ayaa waxay tahay meeshaan uu fadhiyo waa house noocaaya oo Israa'iil leedahay oo iska soo fariistay kuma jiro schedule-ka khudbad uu ka jeedi way maana arag iyo meeshii kale maqaayada ahayd oo iyaduna xogta laga hayaa ay kooban tahay laakiin xaqiiqadu waxay tahay Cabdiraxmaan Cirro kama uusan hadal shirki Davos marti muusan ahayn gudaha ma gelin khudbad kama jeedinin laakiin nin shirdoceediyo goobaya oo inuu dowladaha kale la hadlo goobaya oo arrimaha uu kala hadlo ee meelaha iska warwareegayay intaas unbay u badan tahay aragtida saxda ah ee iga soo baxaysa markaan si waaqici u fiiriyay dhaqdhaqaaqaysa ninkan odayga intaasaan muuqaalkan ku soo koobaya bal haddii wax dambe ay soo baxaan muuqaaladeena dambe ayaynu ku fiirin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh